Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada YouTube channelkayga Fahima Caadil. Aad iyo aad u mahadsantahay maadaama aad nala joogtid intaan bilownay ilaa intaan. Asxaabeyga raali noqdayaan taaneta mashquulkayga aad ayuu batay. Waana awoodi wayna YouTube-ka wax soo dhigo, laakiin mar walba waxaa isku dayanaa asxaabteyda aan wanaajiyo. Aad u mahadsantahay. Filimkeena qaybtiisa koowaad waxay noo maraysaa ayagoo ishumiyeen. Markay ishumiyeen kadibna way kala xishoonayaan. Maalinta xigtan wuxuu imaanayaa asigoo cunto wada laakiin wuu ka weynayaa iskuulka. Kadibna wuu baxayaa taleefankiisa ayuuna ka bacayaa. Marka uu waayana habeenkii gurigeeda ayuu ugu tagayaa. Kadibna wuxuu arkayaa dad meesha taagan. Wuu la yaabayaa kadib markuu fiirina wuxuu arkayaa ayadoo dariishada taagan oo miyaaradana jabsan. Kadibna wuxuu ogaanayaa maalin walba waxay gurigeeda u keeni weysay inay tahay aabaheeda oo xanaaq badan oona qamri cabo. Aadan way iska oonaysaa markii runteeda la ogaado. Subax xigtan aad iyo aad ayuu u fikirayaa wuxuuna u xiisayaa iyada hadalkeeda iyo la joogeeda. Kadib way soo wacaysaa waxayna ku dhahaysaa shin sidee tahayne aniga wuxuu ku dhahayaa waan fiicanahay. Kadib waxay ku dhahaysaa aniga waxaan kuu soo wacay inaan ku macsalaameeyo sababtoo magaaladan waan ka tagi rabaa. Asagana aad iyo aad ayuu u naxayaa wuxuuna ku dhahayaa maxaad iiga tegaysaa iska joog waa ku baryaa. Laakiin ayada ereyadaas way ka xumaanaysaa wayna iska oonaysaa. Kadibna taleefanka ayay iska dhigaysaa. Ugu dambeyn waxay koraysaa baska sidii uu aado magaalada ayada ay rabtay. Asagana wuxuu isku dayayaa inuu baska soo gaaro sidoo uu celiyo oona jaceylkiisa uga sheegto. Laakiin nasiib daro ma soo gaarayo sidaas ayayna ugu tegaysaa. Kadib asiga waxaan aragnaa inuu maqaayad furtay. Maqaayadaas wuxuu gadayaa wax kale maaha maalin haday imaado magaaladan sidee uga gadato maqaayadiisa cunto oona sidaas oo ku arka ayuu gadayaa. Ugu dambeyn saaxiibkiisa wuxuu ku dhahay wax walba hagaagayaan isdeji. Asigana wuxuu arkayaa sawir oo ku qoran joornaalka. Kadibna wuxuu soo qaaday geedka weynaysada. Ugu dambeyn wuxuu arkayaa sawirkeeda iyo jaamacadda ay dhigato. Aad ayuuna ugu farxayaa wuxuuna ku dhahayaa waa inaan aadaa magaaladaas sidan aniga wajigeedaan u arkay jaceylkan oo u sheegto. Aabihiis ayuuna wax walba u sheegayaa wuxuuna ku dhahayaa gabadhaas aad ayaan u jeclaa. Waxaan rabaa markii ugu dambeysay inaan jaceylkayga u sheegto. Adoogii habartan aad iyo aad ayay ugu qoslaan waxayna ku dhahayaan maalin cadee ayaad rayoonaysaa. Asigana wuxuu ku dhahayaa jaamacadaas inaan gala ayaan rabaa. Hooyadan waxay ku dhahaysaa jaamacadaas waxaa loogu talagalay arday si fiican wax u yaqaano oona haddana dhisan oona naftiisa ka fikir adiga intaba ma tihid. Kadibna wuxuu qaadanayaa go'aan wuxuuna isku xirxirayaa silsilad sidoo naftiisa ugu taxtiro oo meel kale uusan u aadin. Guriga dhexdiisa ayuuna rabaa wax inuu ku barto sidoo uu noqdo arday oo aad iyo aad u sareeyo oo waxbarashadiisna sareyso. Mar walbana jirkiisa ayuu ka fikirayaa. Hooyadiisna waxay u keenaysaa cuntadiisa iyo borotiinno asigoo u baahan yahay. Asigana mar walba wuxuu isku dayayaa jirkiisa inuu dhiso waxyaabo badan ee dadka qaar ay cunaan oo cuno maadaama uu joogo tuulo iska yar. Kadibna cuntada mar walba lablaba ayay ku dilaysaa wuuna cuni weynayaa laakiin sawirkeeda ayaa dhiirigelin u noqonayo. Mar walbana sawirkeeda ayuu fiirinayaa. Kadib wuxuu isku dayayaa luqado badan inuu barto sida markuu codsiga oo tirsado wax walba loogu ogolaado. Luqadaha markuu barto kadibna wuxuu isku dayayaa banaanka inuu soo aado oo jimicsi soo qaato oo jirkiisa ka shaqeysiyo. Ugu dambeyn wuxuu noqonayaa qof ku guuleystay jaamacadaas inuu soo galo. Maalinta ugu horeysana wuxuu isku dayayaa iyada inuu raadiyo. Kadib wuu arkayaa aad ayuuna ugu farxayaa wuxuuna ku dhahayaa shiyaangi sidee tahayne. Kadib way soo jeesanaysaa hab ayay siinaysaa waxay ku dhahaysaa aad ayaan kuugu xiisay waana ku jeclaa waad ogtahay soo maahane. Asigana wuxuu ku dhahayaa macaanteyda waan kuu imaaday laakiin wax walba riyo ayay ahaayeen. Qofka oo sidaas oo isdhahay way noqonaysaa waxay dhahdaa adiga miyaa halkan ma imaaday camal. Wuxuu ku dhahayaa haa halkan ayaan imaaday sababtoo adiga ayaan kuu xiisay wajigaagan inaan arka ayaan rabay. Aydan waxay ku dhahaysaa wajigay maxaad ka arkaysaane qofka taqaaniin leen ahaayeen. Asiga yacni shumiska ayaa ka waalaya waxayna isdhahay gabadhan aad ay kuu jeceshaa u aasa camal. In micnaheed maahan haddii lagu sameeyo in lagu jecel yahay. Ugu dambeyn way soo wadaysaa waxayna keenaysaa hoteelka dadka oo dhan ay degaan. Kadibna waxay ku dhahaysaa waxaan rajaynaynaa ka heshid hoteelkanite lacag yar ayaana kaaga bixaysa jaamacadan wuu kugu soo dhaweynayaa. Macasalaam ayay ku dhahaysaa kulan dambe oo xiiso leh. Ugu dambeyn hoteelkii ayuu degayaa wuxuuna yeelanayaa asxaab badan. Naagta hoteelka iskale yacni guriga iskale waa qof wanaagsan. Dadka guriga soo degan way soo dhaweynaysaa cuntana way u karinaysaa laakiin lacagta jaabkooda waayo. Wuxuuna baranayaa asxaab aad iyo aad u wanaagsan.
maalinta xigtana waxay imaanayaan asiga iyo saaxiibadiisa meel lagu ciyaar kadibna waxay arkaan wiil geesi ah oo khatar ah oona kamid ah kooxda Royal wuxuuna isku dayayaa asiga inuu wax baro maadaama ciyaartiisa aad u wanaagsan tahay banooniga tuurayaa laakiin markuu tuuro meel fog ayuu ku ridayaa asigana wuxuu ku dhahayaa ma soo dhaweydniyo sababtoo banoonigaaga xad ma balhanbo kadib meel dheer ayaa iyada ka arkaya aad ayuu u farxayaa wuxuuna is dhahayaa adiga ayaa ku yimaada camal kadibna waxay usoo dhiibaysaa biyo laakiin biyaha maskiinta asiga ma loo wadinbo waxaan loo wada wiilkan kamid ah kooxda Royal kadibna aad ayuu u niyadjabayaa saaxiibadeeda ayaa waxay weydiinaysaa wiilkan ayada darteeda maadaama uu imaaday inay jeceshahay in kale ayadana waxay ku dhahaysaa maxaa ku hadlaysaane iskuul ayaa ahayn hadeertaan isku jaamacad ayaana micnaheedan ma inaan isjecelnahay waxay ku dhahaysaa saqiirada ha igu soo dhisin asiga ayaan banaan kula kulmaysaa wuxuuna ku dhahayaa aniga waa kuu xiistane ayadana waxay ku dhahaysaa warkaas nagita hadeertaan ma soconaane kadibna waxay arkaa oday waayeel islaan oo alaab gaari ku raranayaan ayadana way u tagaysaa waxayna ku dhahaysaa manidin caawiyaane abtigan wuxuu ku dhahayaa haa laakiin asiga ayaa soo cararayo alaabtana wuxuu saarayaa gaariga labadoodna sidaas ayay ku caawinayaan kartoonka ugu dambeysa markuu gaariga soo saaran abtiga wuxuu ku dhahayaa aadaad u mahadsantaa dambeyn haweenaa la gaarayaa asiga iyo asxaabtiisna waxay fiirsanayaan muuqaal anshax xumo ah aad ayayna ugu faraxsan yihiin inay fiirsadaan laakiin albaabka ayaa loo soo gargaraacaya markii la furan waxay noqonayaan booliis asigana gees ayaa loo bixinaya waxaan lagu dhahayaa kulligiin hal qof ayaan ka rabaa kadibna wuxuu wadanayaa asiga asxaabtiisna midaas way ka naxayaan kadibna waxay qarinayaan cajaladada waxyaabaha anshax xumada ku jireen asigana markii la keeno booliiska waxaa la weydiiyay su'aalo badan ayadana way u imaanaysaa waxayna ku dhahaysaa wiilkan wuu cusub yahay halkan ayuuna joogaa asigana si caadi ah ugu dhaqmayaa wuxuuna isku dayaa booliiska inuu la sheekaysto laakiin muuqaalada ayaa la tusinayaa booliiska waxay dhahayaan muuqaalkan ayaana lagu haystaa waxaad gaariga saarayseen ayaan loo baahan yahay waxaan lasoo sheegay waxyaabo xun inaad saarteen asigana booliiska iyo islaamiga wuxuuna ku dhahaa waxaad rabtid ayaan ku siinayaa isku day inaad ifahantid ninka booliiskana wuu ku qaylinaya wuxuuna ku dhahaa ninkan wuu waalan yahay anigoo arkaa ayaan rabaa laaluush inuu siiyo laba sharac ayaan ka qaadaya labadiinan xabsi ayaan ila gelinayaa ayuu ku dhahaya laakiin ayada way xanaaqaysaa asiga ayaana si xun u garaacaysaa waxaana ku dhahaysaa aniga inaad i ceebeysid ayaad halkan ii keentay soo maahan haraanta ayaana ka badanaysaa ugu dambeyn ninka booliiska labadoodba wuu soo xirayaa inay isfiiriyaan ayay iska qoslayaan waxayna la yaabayaan wax ku dhacayo iyo halkan wax ka socdo kadibna way iska sheekaysanayaan ninka booliiska markuu meesha imaadan waxaa la yaabayaa labadooda waxay u qoslooyin wuxuuna ku dhahayaa labadan way waalayaan anna inuu ibaalaan ayay rabaan kadibna way wada sheekaysanayaan wuxuuna weydiinayaa siday isku barteen jaceylkeedii ayada waxay ku dhahaysaa maalintii ugu horeysay markaan jaamacad imaaday ayaan is aragnay alaabta markay iga diyaarateen asiga ayay arooriyay kadibna aad ayaan u jeclaaday ayay ku dhahaysaa sababtoo qof qalbi wanaagsan ayuu ahaay kadibna asiga wuxuu iska imaanayaa gurigiis weliba asigoo xanaaqsan xabsigana waa laga soo deynayaa sababtoo dembina lahayn ayaa la ogaanayaa wuxuuna arkayaa iyadoo gaari la saarantaa kooxda Royal wiil ka tirsanaya aad ayuuna u xanaaqayaa si xun ayuuna u fiirinayaa kadibna wuxuu u xirayaa katiinad wuxuuna ku dhahayaa katiinada adiga ayaan kugu keenay ayadana way arkaysaa kadibna wuxuu arkayaa labadooda inay shumin rabaan kadibna wuu qabanayaa dhagax wuxuuna ku jebinayaa dariishada baabuurka ayagana way la yaabayaan qofkan waxaan sameynayo laakiin ayada aad ayay u fahmaysaa kadibna aad ayuu u oonayaa wuuna soo cararayaa wuxuuna ka qoomeynayaa sababtoo wadankan u imaaday ugu dambeyn subax xigta iyadoo jaamacad imaaday waxay arkaysaa asigoo hurdayo saaxiibadeed ayana waxay ku dhahaysaa waan kusoo naqanayaa waxayaan soo ilooway inay aragtaa ayayna diidaysaa asiga ayaan soo koristaysa waxay ku dhahaysaa kac asigana waa xanaaqaya wuxuuna ku dhahayaa iga fogo marabo inaan ku arko laakiin ayada waxay ku qancinaysaa inuu soo raaco kadibna waxay keenaysaa meel ayada dhar iyo waxyaabahaas ku diyaariso kadibna waxay ku dhahaysaa shaatigaaga soo shiid shaatigiisna aad ayay ugu qurxinaysaa markay u tashay kadibna maalinta xigta wuxuu arkayaa ayagoo joogaan meesha buugaagta lagu akhristo aad ayuuna u fiirinayaa mar walbana wuu ka maseerayaa wuxuuna la yaabayaa siday labadooda iskugu dhow yihiin maalinta xigtana waxay imaanayaan meesha ciyaarta lagu ciyaaro asigana wuxuu ka qayb galanayaa ciyaar dadka ciyaarayaan laakiin mar walba natiijo xun ayuu keenayaa ayadan midaas aad ayay ugu xumaanaysaa kadib markuu arkinaya kooxda Royal mar walba ay jeceshahay inay guuleystaan oo asigana kamid yahay hadeertaan natiijo u haynin ayada ayuu gacanta kasoo qabanaya wuxuuna ku dhahayaa mar walba oo ninkaas banooniga tuuro
adiga aad iyo aad ayaad u farxaysaa anigoo saaxiibkaaga markaan tuuran ma kala jeclid ma waxaad rabtaa kooxda Royal inay guuleysato laakiin aniga xiisayga uma heesayo ku dhahaya inay guuleysato waxaan u baahanahay inay guul dareystaan adigana aad ogaatid inay guul dareysan karaan kooxda Royal aydan waxay ku dhahaysaa midaas aniga ma kala jecli sababtoo mar walba waxaan ogahay geesigayga inuu guuleysanayo markuu ka mid yahay kooxdaas adigan maanta waxaad haystaa jaanis aad iyo aad u weyn waxaad rabtid sameeyay ku dhahaysaa anigana ma kala jecli waxaad sameynaysid ayay ku dhahaysaa mana ku farxay mana ku xanaaqay waxaad rabtid sameey meeshan way u soo dhaqaaqaysaa ugu dambeyn qaybtii labaad ee filimkeena halkaas ayuu ku dhamaaday waxaan rajeynayaa muuqaalkan inaad ka bogsateen muuqaalka xigo intaan ku wada kulmeen waxaan idin dhihi lahay nabad Allah aadaad u mahadsantiin hadda ilaa dhamaadkana la joogteen muuqaalka like noo saara subscribe noo taabta gambaleelkana furta bye bye فرحتي ذو دنبا كلماتي